maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena Wargeysada Yurub ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska balse marka koowaad waxaan ku bilaabanaa kooxda Flamengo waxay dhexda kaga jirtaa xilli dahabi ah naadigan Brazilianka 24 saac ka hor markay ku guuleysteen Copa Libertadores oo u dhigmay UEFA Champions League oo kaleeto waxa uu xigtay horyaalka koowaad Brazil inay ku guuleysteen ayagoo aan dabcan wax kulan ciyaarin waxaana ka caawisay kooxda Gremio oo barbardhac ku celisay naadiga Palmeiras taasi waxay ka dhigtay Flamengo haatan 13 dhibcood inay ka sareeyaan kooxda Palmeiras oo kaalinta labaad ku jirto horyaalka Brazilna 4 kulan ayaa harsan sidaas ayay waxay ku noqdeen marka guuleystayaasha horyaalka Brazil ayagoo aan ku badalaadin kooxda Flamengo waxayna kaga dhigantay 24 saac gudaheed laba koob muhiim ah gacanta inay ku dhigaan markii ugu horeysay muddo 10 sano kadib ee naadiga Flamengo guuleystay horyaalka koowaad Brazil guud ahaan waxay haatan ku guuleysteen tiro 7 jeer ah sida BBC-da ay soo daabacayso sidoo kale kooxda Flamengo waxay noqdeen naadigii ugu horeeyay tan iyo sanadii 1963 oo isku qaaday horyaalka heerka koowaad ee Brazil iyo Copa Libertadores kooxdii ugu dambeysay sidaas sameysay waxay ahayd naadigii Pele uu ciyaaray Santos oo dabcan sanadii 1963 isku qaaday horyaalka Brazil iyo Copa Libertadores hambali ayaa leenahay kooxda Flamengo oo dabcan toddobaad dahabi u tahay maadaama ay ku guuleysteen Copa Libertadores 24 saac kadibna ayagoo horyaalka Brazil aan ciyaarin si rasmi loogu caleemo saaray guuleystayaasha horyaalka heerka koowaad ee Brazil xilli ciyaareedkan dabada wadaasha qiimaha badan horyaalka heerka koowaad ee Brazil sidee loogu kala guulo badan yahay waxa ugu guulo badan kooxda Palmeiras oo 10 jeer ku guuleysatay ku xigta naadiga Santos oo 8 jeer qaaday halka Corinthians iyo Flamengo ay min 7 jeer qaadeen São Paulo waxay ku guuleysteen 6 jeer ay qaadeen kooxda Cruzeiro ayagana waxay qaadeen 4 jeer waxaana la mid ah kooxaha Vasco da Gama Fluminense oo dabcan min 4 jeer ku guuleysteen markaana fiilna BBC-da beejkeeda gaarka ee lagu qoray ciwaanada suuqa xanta ciyaartoyda macallimiinta taabanaya kooxaha kala duwan qodobka koowaad kooxda Manchester United ciyaaryahanka ee doonaysa Jadon Sancho 19 jir wuxuu ka dhawaajiyay inuusan isaga tagin kooxda Borussia Dortmund bisha Janaayo ama xilli ciyaareedka oo meel dhex marayo ciyaaryahankan Ingiriiska garbaha ka duulay wuxuu sheegay inuu kooxda sii joogi doono inkastoo mar walba ay dhacdo markii kooxdan laga badiyo ama bandhigeeda uu liito in isaga eeda dusha loo saariyo oo dabcan marar kala duwan ay isku dhaceen tababar Lucien Favre sida ay soo daabacday shabakada Metro dhinaca kale haddii aan fiirino macallimiinta kale Chris Hughton iyo Sokol Rafael Benitez ayaa la sheegay inay u sharaxan yihiin la wareegista hogaanka kooxda West Ham United maadaama macallin Manuel Pellegrini qarka u saaray kooxda in laga raacdayo sababta West Ham United 7 kulan wax guul ma aysan gaarin sida Guardian ay soo daabacday sidoo kale tababaraha kooxda Sheffield United hogaamiye Chris Wilder ayaa kamid ah macallimiinta u sharaxan kooxda West Ham United maadaama macallinkan kooxda Sheffield United heerka labaad uu ka keenay uu haatan soo gaarsiiyay kaalinta lixaad ee kala sareynta EPL sida The Mirror ay soo daabacayso dhinaca kale tababaraha kooxda Arsenal Unai Emery waxa ku badanay cadaadis xooggan sida darteed majalada Daily Mail waxay leedahay macallimiinta kale ee Maxi Allegri iyo sidoo kale tababaraha labaad ee kooxda Man City Mikel Arteta ayaa kamid ah musharaxiinta u sharaxan inay Arsenal kala wareegaan Unai Emery sidoo kale isla sheekooyinka macallimiinta waxaa kamid ah kooxda Spurs maamulkooda waxaa dooqa koowaad u ah Carlo Ancelotti oo ay rabeen Mauricio Pochettino inuu bedelo laakiin Ancelotti mushaaraadka faraha badan uu sheegtay awgeed way iska dhaafeen Spurs waxayna ka doorbideen Jose Mourinho sida Daily Mail ee soo daabacday kooxda Leeds United ayaa kula soo biirtay kooxaha Aston Villa Crystal Palace qalqaalada loogu jiro 19 jirka Liverpool u ciyaareen Brewster kaasi oo amaah lagu bixin doono bisha Janaayo sida Star ay soo daabacday adiga Wolves 23 jirada wiilka daafaca kaga dheelay Owen Otasawi oo 18 jir waxaa la sheegay dalab inay u soo dirtay kooxda Paris Saint-Germain oo ciyaarta Ligue 1 Faransiiska iyo naadiga Schalke oo for Bundesliga Jarmalka ciyaarto sida The Sun ay soo daabacday kooxda West Ham United ayaa isku diyaarinaysa bisha Janaayo inay iska iibiyaan Colombian-kooda qadka dhexe kaga dheelay Carlos Sanchez oo 33 jir ah maadaama xagaaga dambe bilaash uu kaga tagayo waxay rabaan Janaayo inay iibiyaan sida The Sun ay soo daabacday adiga Spurs waxay indhaha ku haysaa daafac Hollandeeska lagu magacaabo Nathan Ake 24 jir u dheelay kooxda Bournemouth waxaana dalbaday macallin Jose Mourinho wuxuuna rabaa inuu galiyo bedelka Jan Vertonghen kaasi oo qandaraaskiisa ku eegay xagaaga dambe sida Football Insider ay soo daabacday kooxda Arsenal ayaa weyn doonta Samuel Umtiti kadib markii daafacan Faransiiska 26 jirka uu doortay inuu dib ugu laabto kooxdiisa hore Olympic Lyon haddii uu isaga tagay garoon Camp Nou sida ay soo daabacday majalada L'Equipe sidoo kale kooxda Newcastle ayaa dabagal ku haysa daafaca Monaco u dheer wiilka dhalinyarada ee lagu magacaabo Bernard Badeshley kaasi oo 18 jir waxayna daawadeen saraakiisha Newcastle United kulankii toddobaadkan dhexmaray kooxaha Monaco iyo Bordeaux sida Newcastle Chronicle ay soo daabacday ciyaaryahanka xulka Scotland kooxda Aston Villa qadka dhexe kaga dheelay John McGinn oo 25 jir ah kaasi oo Man United si weyn u soo jiitay ayaa ka dhawaajiyay bisha Janaayo garoonka Villa Park inuusan isaga tagi doonin sida Star ay soo daabacday Scottish garbaha ka duulay Ryan Fraser ee u ciyaar kooxda Bournemouth waxaa dabagal xoogan ku hayeen kooxaha Everton Liverpool iyo sidoo kale Arsenal qandaraaskiisa wuxuu ku eegay xagaaga dambe laakiin 25 jirkan wuxuu sheegay wali mustaqbalkiisa ciyaareed wax go'aan
inaysan ka gaarin sida The Mirror ay soo daabacday. Kooxda Paris Saint-Germain madaxdooda waxaa la sheegay wadahadal xoogan inay kula jiraan Kylian Mbappe waxaana wadahadalkan loo xilsaaray agaasimo Leonardo waxayna maamulka kooxda rabaan 20 jirkan naadiga in lagu celiyo mushaarku rabo la siiyo sidii looga celin lahaa xagaaga dambe kooxaha Juventus ama Real Madrid midkood inuu ku biiri lahay sida Lequimbe ay soo daabacday. Kooxda Brescia waxay u sheegeen weeraryahankooda Mario Balotelli haddii uu doonayo kooxda inuu sii joogo dabcan inuu bandhigiisa sare u qaado sidoo kale tababar adag sameeyo macalin Fabio Grossana uu la heshiiyo sida Daily Mail ay soo daabacday. haddii intaas uu sameyn waa Balotelli kooxda Brescia waa laga cadeyn doonaa. ugu dambeyntii qodobada BBC soo daabacaysa waxaa ka mid ah tababaraha xulka Spain dib ugu soo laabtay Luis Enrique waxaa la sheegay macalin labaad inuu ka dhigan doono ninka lagu magacaabo Jesus Casas kaasi oo haatanba ahaa tababarihii labaad ee Spain. Luis Enrique wuxuu diiday in isla shaqeyn saaxiibkiisii Roberto Moreno oo dabcan hore tababaro labaad ugu ahay markii arrimo asiga u gaaray qabsadeen dabcan ku wareejiyay hogaanka xulka Spain. haatan markuu Enrique ku soo laabtay xulkan wuxuu ka dhawaajiyay in Roberto Moreno uusan la shaqeynaynin wuxuuna tababaro labaad ka dhigtay Jesus Casas oo dabcan ahaa tababarihii labaad ee Roberto Moreno la shaqeynayay sida Marca ay soo daabacday. daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan fiirno jaraa'idada Spain ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan maanta oo taariikhdu tahay 25 November 2019 maalin Isniin ee Spanish Papers ama jaraa'idada Spain maanta waxaa coverka loo hiibay guushii ay gaareen xulka Spain oo ku guuleysteen tartankii Davis Cup ee tenniska ahay. Isbaanishkana waxay noqdeen world champion ama horyaalka adduunka tenniska ee xulalka. majalada Marca haddii aan ku bilaawno coverka Spain ayay siinay dabaaldego Davis Cup waxay leeyihiin geesiyaashii Spain oo Rafael Nadal hogaaminayay markii lixaad ay ku guuleysteen Davis Cup ama ay noqdeen horyaalka adduunka ee tenniska waxayna ka qaadeen xulka Canada oo dabcan tenniskii dhawaanahan Madrid ka socday si xarago ku dhahan Rafael Nadal iyo xulka Spain ayaa ku qaadeen. sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Idris Gueye ee wareys la yeeshan ciyaaryahanka Senegalese qadka dhex kaga dhelay Paris Saint-Germain ninka lagu magacaabo Idris Gueye wuxuu yiri haddii Real Madrid ciyaaryahan aan ka qaadanayo waxaan ka xulan lahaa Eden Hazard oo aan Paris Saint-Germain ku biirin lahaa shaki la'aan. marka wuxuu leeyahay Idris Gueye haddii la siiyo fursad oo la dhaho ciyaartoyda Madrid keeba ka qaadan lahayd oo kooxdaada ku biirin lahayd hubanti ahaan wuxuu yiri Hazard ayaan dooran lahay. dhinaca kale Marca waxay ammaan u soo jeediyeen kooxda Zidane hogaamiyo waxay leeyihiin Zinedine Zidane kooxdiisa Real Madrid haatan si weyn ay u saldhigatay waxay la mid tahay kooxdii 2016 oo kaleeto awood ahaan iyo dheelitir ahaan markii la fiiriyo iyo qaabku ciyaartoyda kaga faa'iideysan. ugu dambeyntii waxay leeyihiin Zidane si rasmi Real Madrid u saldhigtay muddo 3 sano kadib. sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen kooxda Athletic Madrid oo xaalka ku xun yahay maalmahan guul ma aysan gaarin kooxdan Simeone hogaamiyo toddobaadkana shaqo culus ah hortaalo sababtoo ay waxay UEFA Champions League la ciyaari doonaan kooxda Juventus kadibna waxa uu xigi doona toddobaadka dambe inay wajahayaan Barcelona. marka Marca waxay leeyihiin Athletic Madrid oo xaalkeeda jahawareersanay waxa isugu xigi doonaan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi in la ciyaari doonaan. sidoo kale haddaan fiirino majalada AS ayagana waxay leeyihiin Champions of the World horyaalka adduunyada ee tenniska waxaa noqdeen Isbaanishka kadib markii Davis Cup ay gacanta ku dhigeen sidoo kale tan Canada ay ka badiyeen. waxay kale qodob ka soo qaateen wareysi kooban Hazard la yeesheen. Hazard wuxuu yiraahday wax walba ayaan sameyn doonaa sidii aan ku soo jeedan lahaa saaxiibkay Mbappe waxaan rajeynayaa baaq ama fariintan u dirayo inuu aqbali doono xagaaga dambe imaan doono Real Madrid. marka Hazard qayb ayuu ka noqday qalqaalada lagu jiro sidii Kylian Mbappe lagu keen lahaa garoonka Bernabeu xagaaga dambe. majalada Mundo Deportivo markaan fiirino ayagana kama liitaa maanta waxay coverka siiyeen xulka Spain ayay siiyeen tennis ku guuleysteen waxay leeyihiin Davis Cup magic mucjisadii Davis Cup ayaa dhacday Isbaanishka markii lixaad ku guuleysteen waxayna leeyihiin hambalyo ayay leeyihiin waliba waxay leeyihiin aan ku dabaaldegno guusha weyn ee Spain gaareen. sidoo kale Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaateen Gerard Piqué iyo marwadiisa Shakira oo dabcan goobjoog u ahayn guushii Spain ee Madrid ku gaareen. Piquéna uu la dabaaldegay xulka Spain ee Davis Cup ka qaadeen. daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan tagno gudaha Talyaaniga ciwaanada kubadda cagta ugu waaweyn ayaan fiirinayna maanta oo Isniin ah waxaa maanta lagu dhigan yahay ciyaartoyda kooxda Milan kuwaas oo kale Ante Rebic, Lucas Biglia iyo sidoo kale Frank Yannick Kisai waxaana lagu heystaa ka hor kulankii dabcan Napoli ay wajaheen qolka labiska ayuu ku jiraan isdiyaarinayaan inay moobiladooda ku mashquulsanayeen qof walbana wuxuu isaga jiray social media ama baraha bulshada. taageerayaasha Milan waxay leeyihiin kuwaana ma matali karaan sababtoo anagoo kulan adag leh ayay dabcan moobil isaga baashaalayaan. Milanna waxay leeyihiin taageerayaashooda waan ka xunnahay ciyaartoyda dhiigga u soo daadiyeen kooxda ma joogaan ee kuwa waxaa joogaan mushaarkooda iska qaataan moobilkooda isaga mashquulsan. sidoo kale haddii aan fiirino qodobada kale soo qaadana Talyaaniga waxaa kamid ah guushii Isbaanishka Davis Cup ay dabcan xusayaan waxay kaloo soo qaateen haddii aan fiirino ninka lagu magacaabo Sebastian Giovinco ciyaaryahankan calanka Talyaaniga cirka sare ayuu geeyay gaar ahaan qaaradda Aasiya kadib markii kooxda Sacuudi Carabiga ka dhisan Al Hilal uu ka caawiyay ku guuleysiga UEFA Champions League qaaradda Aasiya waxayna kooxda Al Hilal haatan u soo baxay tartanka FIFA Club World Cup oo ay dabcan December kala qayb qaadan doonto kooxaha Liverpool, Flamengo iyo naadiyo kale. marka waxay leeyihiin Sebastian Giovinco calankeena cirka ayuu geliyay maadaama kooxda Al Hilal uu ka caawiyay ku guuleysiga UEFA Champions League ee qaaradda Aasiya laga ciyaaro. sidoo kale haddaan fiirino qodobada kale soo qaadanaan Talyaaniga waxaa kamid ah gaar ahaan La Gazzetta dello Sportivo Vincenzo Montella oo shaqadiisa halis ku jirto macalinkan xaalka ayaa ku xun Fiorentina waxaa toddobaadkan hal gool ebar kaga badisay naadiga Verona mana ahan waxay aqbali karaan maamulka Fiorentina sidaa darteed macalinkan wuxuu qarka u saaniyay shaqadiisa in laga raacdeeyo waxay noqon doontaa arrin la yaab leh haddii toddobaadka
toddobaadka dambe dabcan uu kusoo laabtay shaqadiisa asigoo wato sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Antonio Conte oo dabcan ka dhawaajiyay ciyaaryahanka Sensi halis in la gelin doono kulanka Slavia Praha ee wajahayaan Salamada Nicola Barella asagana waxay u badantay kulanka inuu seegi doono laakiin waxa la dhakhtar Conte asiga yaqaan sida uu kooxdiisa ku xalin doono maadaama uu haysto ciyaartoy kala duwan markaan aan fiirino majalada Calcio Mercato qodobada ay soo qaadanayso waxaa kamid ah kooxda Juventus lagu magaara gacan ku soo dhigista ciyaartoyda muhiimka ah markaan waxay kooxaha dhanka ka hormar rabaan ciyaaryahanka Swedishka aad iyo aad looga daba dhacay ninka lagu magacaabo Dejan Kulusevski oo qadka dhexe kaga dheelay kooxda Parma 19 jirkan qadka dhexe ka dheelay waa ciyaaryahan tayo wanaagsan bandhigiisa aad u sareeyo marwada duqda waxay rabaan gacantiina ku dhigaan xitaa qaar kamid ah kooxaha Premier League sida Liverpool Arsenal Chelsea dabagal ku hayaan Kulusevski kamana marna xitaa Inter iyo Roma iyo Lazio inay doonayaan laakiin waxaa la sheegay marwada duqda tilaabo hor la ay qaadeen oo waxay rabaan wiilkan gacantiina ku dhigaan dhinaca kale kooxda Napoli waxay la xiriireen macallin Maxi Allegri oo ay rabaan tababaro koowaad inay ka dhigtaan Ancelotti shaqadiisa halis ay ku jirtaa hadii dabcan kulanka UEFA Champions League nagu soo fool oo dabcan wajahay kooxda Liverpool guuldaro la kulmo Carlito Ancelotti shaqadiisa waa ku deysay waxaana kala wareegi doona Maxi Allegri sidoo kale qodobada kale Talyaaniga xiisaha badan waxaa kamid ah Chelsea waxay shaaca ka qaadeen 8 milyan oo euro inay ku doonayso Oliver Giroud waxayna ku tahay caqabad kooxaha Inter Milan iyo AC Milan oo ciyaaryahankan qalqaalo xoogan ugu jireen waxayna ku rabeen 5 milyan oo euro inay ku qaataan sidoo kale wararka Inter Milan waxaa kamid ah Inter waxay horumar wanaagsan ka sameysay sidii ay gacanta ugu soo dhigeen Levin Kurzawi daafaca garabka bidix kaga dheer Faransiiska Paris Saint-Germain Inter iyo Paris cilaaqaad wanaagsan ka dhaxay maadaama amaah ay ku seen xagaagi dhawa Mauro Icardi ayagana waa loo sahli doonaa sidii ay Kurzawi ku qaadan lahayn bisha Janaayo dhinaca kale ciyaaryahanka laga daba dhacay daafaca bandhigiis aad ku sareeya Chris Smalling maanta ayuu sugayaa jawaabta ugu dambaysa kulanka Roma iyo Manchester United dhexmari doono Smalling mowqifkiisu uu cad yahay wuxuu rabaa caasimada Talyaaniga inuu sii joogo kulankii ugu dambeeyay Brescia bandhig heer sare ayuu sameeyay maadaama goolna uu dhaliyay laba goolna caawinaad uu ka geystay marka Smalling wuxuu maanta u hanqal taagaya kulanka dhexmari doona United iyo Roma wuxuuna rabaa heshiiskiisa amaahda in joogto laga dhigo hadii aan fiirno majalada Tutti Sportive ciwaanada ay soo qaadanayaan waxaa kamid ah Cristiano Ronaldo oo tababar adag sameynayo kulanka Atletico Madrid diyaar u ciyaaryahankan bandhig heer sare inuu sameeyo waxay kaloo qodob ka soo qaateen Mati De Sciglio oo gacan haatinaysa kooxda Paris Saint-Germain De Sciglio ay rabaan kooxda Paris gacantii inay ku dhigaan maadaama Levin Kurzawi oo bisha Janaayo ka tagayo kuna biirayo kooxda kubadda cagta Inter Milan isla sidoo kale ciwaanada kooxda Juventus waxaa kamid ah 5 ciyaaryahan ayaa shaki la gelinaya kulanka Atletico Madrid inay seegaan horta laba waaba la hubaa waxaa ugu horeeya Douglas Costa oo shaaca laga qaaday 15 maalmood garoomada inuu ka maqnaan doono maadaama muruqa dhibaato ka soo gaartay ninka lagu magacaabo Delight daafaca muhiimka Hollandeeska asigana garabka ayaa kala baxay waxaana shaki weyn laga qabaa xitaa toddobaadka dambe kooxdiisa inuusan u ciyaari doonin sidoo kale warar dheeraad waxay sheegayaan Federico Brandesti asigana dhaawac inuu qabo kulankan uusan ciyaari karin halka Alexander Adrian Rabiot ayagana jug kala duwan ay qabaan tababarkii ugu dambeeyay way dhameysan waayeen sidaa darteed waxaa leeyahay macallin Sarri walaa xoogan ayuu ka qabaa xidigiisa muhiimka qaar kamid kulanka Atletico inay seegi doonaan xilli uu rabo kooxdiisa guul inay gaarto kaalinta koowaad ay kaga soo baxdo groupka ay kaga jiraan UEFA Champions League ugu dambeyntii sheekooyinka Talyaaniga waxaa kamid ah kooxda AC Milan akhbaarta wanaagsan oo heena waxay tahay Fabio Borini iyo Simo Castelletto ayaa tababarka si rasmi ugu soo laabteen sida milannews.it ay shaaca ka qaaday labadan ciyaaryahan waa kuwa muhiim u ah Milan caawin karaan dhinaca kale Ante Rebic jugti soo gaartay dhanka jilibka waxaa la sheegay baaritaan dheeraad in lagu sameyn doono kulankii Napoli sidoo kale AC Milan waxay tijaabo dheeraad ka qaadi doontaa daafaceeda Brazilianka Duarte oo isagana xanuunka sheegana dhanka ciribta waliba kulankii Napoli ayuu ku seegay xanuunka ciribta ay ku hayso baaritaan dheeraad ay lagu sameyn doonaa sidoo kale ninka lagu magacaabo Ricardo Rodriguez asagana jilibkiisa bidix barar ayaa ku jiro waxaa lagu sameyn doonaa baaritaan dheeraad waxaan laga cabsi qabaa kulanka axadda nagu soo fool Parma wajahayaan inuu ciyaaryahankan Swiss-ka uu seego daawadaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena Wargeysada Yurub ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportiska intaas ayaan kusoo idleenaynaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum waraxmatullahi